adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahay afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fahuwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanaya kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahay meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah xadiidka maxalu shaahidkun baynu ka soo qaadannay waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayey wakhtigii islaamka ka horreeye la samaynayey oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynayo uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xazaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxayn leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay